dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan balse hadda waxaa muuqata inuu kordhayo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo Turkidu. xaafadda Saray ee ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara oo ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu degan yihiin horeyna looga furay dugsiga Sheekh Cali Suufi ayaa laga furay meherad cusub oo lagu magacaabo Safoya taasi oo laga heli doono cuntooyinka Soomaalida iyo waliba Turkida. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdikariin Maxamed Jimcaale oo ka mid ah maamulka maqaayadan sidoo kalena dhankooda culimada iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadan Saray ee ka qayb galay munaasabada furitaanka ayaa madasha ka hadlay. bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan furitaankeeda sameynaynaa Safoya restaurant oo ku taalo Ankara waxaan u hambaliyeynayaa dadka ka soo qayb galay xafladan dhamaantiin waad mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan maqaayadiina waaye marka maanta waa shaqadii aan bilaabaynaa in alla intii la socotan waa oo noo timid waa qeyr intii hadda marna maqli doontana waa kaas soo dhawow ayaynu leenahay waxaa farxad weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno furitaanka maqaayadatan Safoya waxay u tahay reer Saray guul weyn markii aan madcam kala bariis iyo hilib aan damacno meel dheer aan u teegi jirnay laakiin falillahi alxamdu wal maanta waxa weeyaan xaafadeena nagu ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo soo dhaweeyay noo furay إلهي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل أجاب نسأله وحن ويديسننا جل جلاله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا المطعم إنه إلهي سبحانه وتعالى أبركايه وإلهي بركة قدره لقى فائده كي لقو نجحه وهرمرك لقو قاره إنه إلهي كدقه وحامق عيق اللي يحيى إيمان أفرح معلمين القرآن كدكتان كمدهاي soo dhawaadaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada dhammaan Soomaalida Turkida intii wadanka ku nool insha Allah waxaan leenahay maqaayadiinu waaye. Burası Ankara Saray Pursaklar Safoya restoran, Somali restoran, yeni restoran. Restoranın kendilerine hayırlı olmasını, bol bereketli, bol kazançlı işler nasip etmesini diliyoruz. Tekrardan Abdülkerim'e hayırlı olması dileğiyle hayırlı olsun diyoruz. Maşallah maqaayadan waxay u furan tahay Turkida iyo Soomaalida walaalaha ah ee ku sugan caasimadda Ankara qaasatan xaafadda Saray maşallah gacan furan ku soo dhawaada. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Ankara.